kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa telefishinka dalsan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka kulanka baraha bulshada kaas oo ah barnaamij aad u xiiso badan toddobaadla ah xilligan oo kale aad ka daawataan telefishinka dalsan waa barnaamij aan ku eegno sheekooyinka kuwa ugu xiisaha badan baraha bulshada maada iyo madadaalada qaybo kala duwan ayay leedahay toddobaadkanna waa toddobaad kale oo aad u xiiso badan tiim waxaana la jooga barta tiktoka haddii aad tahay qof isticmaala hubanti inaad garanayso haddii aadan aqoonna maanta aniga ayaa ku baraya tiimkan waa tiim la yidhaahdo isiiba aan ku siistee waxay ka mid yihiin dhallinyarada barta tiktoka isugu tegay kuwaas oo hal abuuro ka qosliya dadka kusoo bandhiga barta tiktoka haddaba toddobaadkan waxay barti noogu yihiin barnaamijka kulanka baraha bulshada waxaan weydiin doonaa su-aalo dhowr ah oo kala duwan oo ku saabsan taariikhdooda iyo sidoo kale madadaalada ay usoo bandhigaan bulshada ku xiran bartooda tiktoka waxay ay haystaan dad aad u badan oo ay ku mashquuliyaan barta tiktoka haddaba sidee ayay ku heleen dhalinyarada isku tegay dadkan tirada badan leh maxayse ku qanciyaan bulshadooda sidee ayay u haystaan waxaan idiin soo gudbin doonaa iyaga dhalinyarada ah fikradaha noocee ayay jecel yihiin inay bulshada la wadaagaan sheekooyinka kuwa ugu xiisaha badan oo ay soo bandhigeen oo qaarkood marka aad daawato daawado aad qosli doonto aniga hubee ayaan idiin soo gudbin doonaa laakiin mar kale iyo kulanka baraha bulshada isku soo noqod wanaagsan mar kale daawadayaal barnaamijkeenan kulanka baraha bulshada ayaa siyaanba qaadaynaa marka hore waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo saaxiibadii lohaa iyo sidoo kale aalka iyo sidoo kale diyeeshe oo iyagu ka mid ah saaxiibada isiiba aan ku siistee waxaan jeclahay inaan marka hore kusoo dhaweeyo stuudiyaha dalsan iyaguna waxaan jeclahay in su-aalaha weydiiyo marka hore waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka kulanka baraha bulshada aad waxaan ugu faraxsanahay inaan stuudiyaha idin kusoo dhaweeyey maanta haye mikrofoonka bal qofka ugu horeeya ee qabsadaan su-aasha ku bilaabi doonaa saddexdiin midkiin le waayahay waxaan jeclahay marka hore inaan ku weydiiyo waxaad tihiin dhalinyaro isku tegay gaar ahaan barta tiktok aad u isticmaashaan maxaa idinku dhaliyey inaad midowdaan ileen barahu waa kala gooni qof walba akoonkiisuu leeyahay haddana inaad isku tagtaan wax isla samaysaan maxaa idinku dhaliyey marka hore idinka wallahi saaxiib horta salaam aan dafan midda koowaad waxaan ugu yiri waxa waaye kow waa aragtay tiktok waa fiirna qaabka u socdo waxba sidii u socdaana loo qabtaa marka waa aragnay saddexdeena inaan is anfacno waa dareennay fiidiyoga noogu horeeyay aan soo gelinayno anku filaynin zaaid uma qarxay waayahay maxaad soo bandhigtaan idinka aniga waa aqaana laakiin dadka qaar laga yaaba inaysan aqoon anigu taageerayaashiinaan ka mid ahay ayaa maxaad samaysaanba dadka u sheeg waxaad qabataan si guud maxay yihiin madadaalada waxaan qabana waxaa waa shactirooyin sida qof oo kale dabaalis weyn oo kale sheekooyinka oo juxoo kale midda kale waxaa waaye waxyaala adi qabiilaadkan oo kale qasooyin oo ku dhacdo oo kale dhexdooda waxaa kasoo dhexbaxsanaa wixii mooryaannimo ahoo dhacay isbaarooyinka laga sheego kale waxyaalo badan noocaas oo kale waa soo dhignaa waayahay marka idinku aad isticmaalaysaan bartaas waxaa laga yaabaa dad badan oo idinkoo kale ah inay isticmaalaan idinka waxaad kaga duwan tihiin sida aad sheegtay inta badan waxaa laga yaabaa qaarkiin in mararka qaar qabiilada sheekooyinkooda gaar ahaan qabiilka la yidhaha reexamarka aad sheekooyinkooda aad u isticmaashaan maxaa ku dooratay ilaa soomaalidu qabiilo badan ay leedahay haddana reexamarka maxaa ku dooratay wallahi maasha allah dadka reexamarka baa hadalkooda caadiga qosol iska abaniyo iska dhaafay shactiradooda waayahay laba good la lagu yidhaahdaa waayahay laba good maxaa lagu xoogaa adiga dadka jileenka reexamarka waa keeni weysnaya ma waa xoogaa aad aragtay maya ma ahan waxay ugu bixiyeen intooda way fiiriyeen ninkaan diyeesha lahay markuu ka imaaday sidoo kale saaxiibkayga ninkaan asigana waxaa waaye muqdisho loo joogi jiray laakiin luuqadaa labadooda way keeneen ninka aniga ahaa waa keen waa marka luuqadaas marka waxaa lu dhaha adiga dhinaca laba goodlaan oo jileesa goodlaha adeegaba saaxiib adaan u qaabilsan waya aalka igu dhiib halkaa rabaa inaan weydiiyo markan su-aalo kale ku saabsan reexamarka adaa inta badan u hadla oo laga yaabaa in dadka aad ugu qosiisay marka hore in yar oo luuqadaas ah inaad loo gelisaa rabaa waxyar inaad saas ku salaantidaa rabaa dadka خراوي إن خدر كوير أخذ بها هلي قيمة هلي خدري الدرسن أنا الكاني أنا الفيرسة
inta badan sheekada hadeetan oo kuu sheegay haddana kugu celina inta badan sheekada aadka igu qasaysa hal abuurkeeda yaa lahaa annaga rag makaroorone rasaasan karo wallaahi horta dad badanaa jiraan oo aniga fikrada wax nala soo wadaagaan taasna waxaa waaye cidda kalaha keenta ma ku dhahayno fahmino qof anaga nagu dhow oo ehelkeena ah keenoo keena waayahay inta badan muuqaalaa soo gelisaan muuqaalka adigu aad ugu jeceshahay oo aad xasuusan karto oo views badan gaaray loofis badan helay oo adiga aad jeceshahay halka ahaan mar walbana niideed kusoo dhaca keewa wallaahi horta videogaas waxaa waaye anigana aad iga khusaysiiyey oo aniga xataa isdhayn videogaana qarxaayo oo aniga ninkaa wanaga maqnaa ninkaas magaalka ku jiray oo alcohol hirigba oo dhahayo oo odayga aad tufayo dabka ku boodaayo videogaas waa markaa waxaa laga yaabaa dhalinyaro badan oo isticmaala bartaas in xoogaa ay kusoo dhibtoodeen inkastoo qaarkood laga yaaba in hadda ay magac ku leeyihiin barta kuwa kale ilaa hadda laga yaaba inay magac sameyn layihiin muuqaalo soo jilaan heeso soo sameeyaan maxaa is leedahay bartaas tiktoka dadka magac way ku heli karaan idinkana waa ku hesheen والله horta qof walba waxay ku xiran tahay dadaalkiisa waxaa waaye anaga xitaa waa maanta isla markii ma soo bixin nan bixiliyaa soo martay fahmiyo marka aniga waxaa leeyahay wallahi billahi ni jibina hore loo socdaa dhabar adeeg wax dhabar adeeg Soomaalidana waa ogtahay ninka kooda oo lagu cayna adiga waxba ma tiidsan waaye wala alxamdulillah damaanta waxaa waaye waxaa laga yaabaa in fanaaniin ama dad magac leh taageeri jirtay adiga qaybo kala duwan ha noqdaan actriska ha noqdaan maanta adaa xoogaa magac leh dadkuna ay xoogaa marka meel aad marayso oo kale dadku arkaan laga yaabaa inay ku yidhahdaan warkankii tiktoka waa maxaa dareentaa markaas oo kale in marka hore adi wax taageeraysa farqiga u dhexeeya badan wallahi horta hore niyo farqi weyn u dhexeeyo marka adiga wax taageerayo iyo marka adiga wax taageeraysid fahmino wallahi horta markii la dhaho ninkii aalka ahay waa kaasa liida ku dhismo Soomaaliya adiga is badan ila sharaada wax beenaa meesha martay maantana waxa waa soo martay ninkii adiga agtaada maalin mari jirtay oo ehelkiisa ku salaamin marka agtaada mari isku salaanta maxay isdheeyay diisha asna waxa weydiina diisha adiguna diisha waxa weydiinaya markan adigu diisha ahaan marka bartaan aan isticmaalaysaan muuqaala ku soo bandhigtaan mid ku jira fikir ah dadka qaar laga yaabaa inay markay magac ka sameeyaan inta YouTube u dhashay si lacag ku sameeyaan hal abuurkaas dadka mid ku jira YouTube ma leeyahay ma ku fikiraysan hadda sameeyaan dawladda kale la YouTube waa ku fikirnay waana sameeyaan wana sameeyaan TikTok laakiin xogaa adii magac TikTok markaa ka sameeyay kadib oo dareentid in dad ay kugu xiran yihiin markaas oo soo gudbi kartaa laakiin adigoo dad ay kugu xirnaan YouTube ka bilaabaa laakiin markaa ka soo bilaabay barwan waa ku fududaanaysa haddana YouTube macnaa noo sameeyay waa sameeyna dad badan oo nagu xiran yihiin asxaabteena ka mid ah oo TikTok iyo marka YouTube ka sameeyay marka hore magac ka sameeyay marka TikTok lagu yaqaano sa filaysay ma ku kacay ma si ka sii sareysan si ka see dareentay marka YouTube sameeyay YouTube korta anaga ka suko waxaan ugu dhiirigeliyeen asxaabta anaga nagu xiran TikTok oo nagu dhahan meeshan ka kaca hore u socda dhaqaal sameeya meeshan dhaqaal malaha ka suko xataa macnaha meeshan magaca ku sameeysan way idin kala kacay horena u soo socda macnaha dadaalkii dheereey meeshiina ka sii wada marka muuqaalada aad duubaysaa waxaa laga yaabaa in bar TikTok muuqaalada lagu soo bandhigo aad u kooban yihiin waxaa laga yaabaa in 2 daqiiqo gaarin inkastoo aniga aad u aqoonin 60 sekin waa daqiiqad daqiiqadaas marka haddana dadka aadna ugu qoslisaa say isugu keeni kartaa wallahi horta way dhib badan tahay dhahay waa editgareena muuqaalka adiga ilaa nus saac camal ugu qaadana adiga inaad duubtaa way muuqaaladii mise usoo gelisaan maalintii ma 3 video soo gelisaan ma hal video soo gelisaan ma isbuuca soo gelisaan say usoo gelisaan say isugu keentaan waxaa laga yaabaa dana kaloo gaar inay leeyihiin waxbarasho inay ku jirtiin inay shaqooyin kale leeyihiin say marka isugu keentaan wallahi horta waxaa iskugu keennaa maalintii 2 video sameynaa maalintii 2 video TikTok sameynaa teeda kale waxaa iskugu keennaa hal mar isku imaanna fikradaha intaana sameynin ka hor habeenkaasi diyaarsanaa fikradaheena anagoo haysanaa subaxda la soo kacnaa
saasoo ku shaqtaynaa waxaa waaye codadkeeni waxaana waa diyaarsananaa hal mar muuqaaladana hal mar aan soo waay magaca waa la wada rabaa sax si ugu heshiisaan muuqaaladaas ay u qaybsadaan ilaa waxaa laga yaabaa qof walba bar TikTok gooni u leeyahay sax say ugu heshiisaan muuqaalada dadka qaar waxaa laga yaabaa dhalinyarada moogtahay inay aada u heshiiyaan xoogaa markaa haddana qaybsi imaadiyo magac aad u adagtaa ma qofka fikradda lahaa muuqaalka la siiyaa mise tooka qaad sidee u qaadataan walaa horta fikradda anigoo kale maanta haddaa fikradda aan keeno fikradda markaa u keeno iyagaa usoo bandhigo fikradda waxaa laga yaabaa xataa in micnaha aniga waxa ay igu daraan fikradda wax ay ka bedelaan oo micnaha waxay ku daraan marka waa ku heshiina anaga waxaa waaye manihin dad oo micnaha TikTok aan bas kusoo midoobay ilaa yaraanteena waxaa waaye moonisa iska soo kornay dad isfahamsanana haddana marka caadi dadka qaar waxaa laga yaabaa aalkii diisha inay walaalo u arkaan wadama raxmarka saxmiya mise waxaa waaye aalkii ani walaalaa nahay micnaha qaraabaa nahay dad isku soo dhow oo asxaabna aan nahay ilma abti aada isugu dhownahay waayahay waxaa igu celin mikrofoonka waxaa rabaa inaan weydiiyo isagana bal bartan TikTok-ga waxaa laga yaabaa dadka qaar inay u arkaan siciida damaan dad dhayroo soo koraayan waa tihiin marka hore muuqaalada sameynaysa dadaa laga yaabaa inay u arkaan waxaan jirin ma aragteen dad xoogaa dhawr waxaan wax fiican ma ahane iska dhaafo waqtigiina wax kaloo ku dhumisiin raadiye ma aragteen والله horta way jiraan horta dad badan oo ay kan ku lahaayaan waxaan bilaabeen iyo laakiin ma ogaay ka dadkaas ma ahan oo aday ku arkaan halkii mar ku arkaan waxa waaye hal yar caay iska gashanaan fahmay iska noocaas oo kale waxa waa hal masalabo iska jiraan aday kulay waxa umada dhan ma wada ahan laakiin ay u badan yihiin inta hore u socdo ku dhees baya commentiyaal soo qoraa marka qaar muuqaalada soo gelisay waxa laga yaabaa qaarkood inay ku jiraan kuwa idinku aflagaadeynaayo ama muuqaaladiina dadka qaar oo aanan ka helin inay ku jiraan marka dadkaas oo kale community-da aqriso maxaa dareentaa waxaan ku jirta inaad wax fiican inaad dareentaa ma dhiirigelin la kasii qaadaa maxaa dareentaa والله ما شاء الله horta anka asxaabtuna wixii waa asxaab fiican hay iyo waxaas ma nutusaan waxa haastaan fahmin caydooda amantooda badan والله ما شاء الله anka waa taageersanahay way jillinka wuxuu u baahan yahay qofka marka si uu jillinka ugu soo baxo qof nooceel rabaa saali والله جلينك وحواي قفكي أسيا أرتكو عدك ولا فيرنا إيش اعتراض سو صعته مرك قفكي الله لا أنت عدك القبنا يا كلا قفكي سي عن وضح ذا أخذنا جلينك ويه هندي وكله سؤاله تيك توك قالوا استعمالان وحلاقي بقى إيوان مقالة عم جعل هالنقدان عم كوا كانوا شاطرها صوب النجان ودمك كانوا أساسا كانوا يجران وده كده يتان ما يجري إذنك مثلا أقول كين إذنك وجوني بيه والله ما ممكن وقتين أنا كنت طيب ما لقي هذا برتك توقع داوته كحرنت عم صومالي هنقطة عم الجنوب هنقطة وعدي أجعشة أنا أجعل سفي عن وجرتها وهندي ما كوا كحرنها ولكن سيدا أكشمات كذا وحيالها لكن أنا كنت بدنا موصول إنه بأكشن لكن أنا أهنتي أكشمات كاس يوحسين هندي كتنالها حواي نعم صومالي مثل اللي يركلوا بدنها جدا وذيك وكان ما شاء الله صومالي والله ما شاء الله كان لما انتو دوا طاير صلح بس بر سيجارة وحرنتها وكلام جرتها سفيعا سلمو سلمو سلميريسي هي ولا كذا مركز داوني سيد ريلاكسيا بقاطع ما شاء الله والله كاس كفاية halkaan waa su-aal aad ii qoslaysa madaxa guuxiisana weydiiyo waxaa laga yaabaa in maadaama qofka qosolka badan ama mujaajilada iyo adiga codkaaga isku egtiin qofka wejigaaga arko codkaaga hore uga soo dhaca gabdho badan laga yaabaa inay daawadaan kula soo xiraan gabar weli waa ku jeclaa ku dhees ma ahayn waxaa kaa soo raacay والله يرتني والله يا ريت جيسا كان دغاي حاليا waa saal meel kala soo xiriiro kala walidiin Soomaaliya dadku u bandhigtaan fikradooda ku soo dhiisaan ilaa meeqa listi ku jirta dacay macasoo ku fiican بديه سوا مستقبلك ما حتعشان ما دام تلينك ما مجاجل يستاج عشان آخر كان ما قاعد سمية ما أكترك وهمين يسا مرة حمر كان من بعض كويس صنبا سج عشان والله ماشي إذا إنا جودين حواي عبدنا سنة الحمد لله ما فهمت دير جرين بدنا نوار استعمانتا
والله بحرجينا أنا وخاطر ما سرع جاري فاهم نقصد عيار يعني إن شاء الله خف بهم يسن وجارة دولا إنه هم جاي مدحوين مركز الوزاري وزير ما دختر ولا غلط دكتور أحمد يمكن احنا بدنا نكشف مارك مستقبلك محاج عشان أنا والله مستقبل برضو حرجينا انه انا انه واختار لنا ناخذون فان لك واحد سيجار هذاك وجرب والله نصيبك يا سيجار نسيبك قاعده عادي واي هي marka dhalinyaro waxa laga yaabaa muuqaalada sameeya iyagana inay jiraan haddana qaarkood waxa laga yaabaa barta TikTok si loo isticmaalo faham u baahan iyada laftirkeeda صح والله codadkaas oo kale iyo muuqaalada in la saaro oo arba in laga mar laga yaabaa editing u baahan tahay idinka yaa idin sameeyo maalin qof baa sameeya qof gooniya u leeyihiin muuqaalada yaa idin doomo marka saddexdii inaad soo muuqatina laga yaabaa yaa inay caawiyo markaas oo kale والله horta muuqaaladana waxaan ugu ballan walaalkeena doona ugu maxay hay خلق فنوض ونقول حتى لا بخفض بالك يا ست انت كسلام علينا ولك هيرو marka labadaas aan duuban video habeesa dil oo maanta waxa waaye anaga ma wadan qanaado aan qof binaadam ka rol bijaan ismay mardaan ka garana hawe markaan haweena markaan haweena meesha laga soo gaarto way hay idinka ilaa intee isku kalsoontiin dad saaxiibaadkiina ku weydiina haddana xoogaha Soomaalida markuu guriga yimaado waxa laga yaabaa inay aad soo dhacaan dhaqaale kala bar YouTube asneysteen hay ilaa intee kalsooni ilaa isku qabteen wallahi sabtaniyo wartaanay dad oo darad sabtaniyo yaraanteena ilaa ay hadda xaafad ku soo kornay hal meel dad hal saano ku soo annaga taqaanayo haadiye mar badan la soo jawaay maanta ma umaleynaa inaa waxa waaye عايش اسكو دغالين باي رحمت أنا محاك جعشة هاي يعني لو أدي لفتركار حوجا جلين كاجي إسليه ضد ما أركت بصراحة يعني إنه قال لي حو ما أركت والله إلا هدرت ما أركت ما كفانا وردت كاس عند رحمت أمدي ذا هاي نعم فاضل هاي سلام عليك والله هدت إلا هذا ما أركت ما يبح إحساس إلا جلين كود لك والله هي استدت أنت بدل ما كوك كان ولا سكو خص أصلا وجهي هاي خيبة هذا المورس كان سوق جهني دتك عليك تاجر الجارهان هان محادي له دت بدل اللي هذا تاجر جعل مرنا واحدة هديد عليه محادي له دتكس والله صدق تلفش كوكسية والله ورت أصحابتي دورت تاك السلامة أنت جعل بدلنا وأرك وأنا جعل والله سيدي يجعلني ما أنت أنا وجعل إن شاء الله أنا بروح أيام ما أنت بروح واحد من خدمانا ممكن لو صوت اللي ولا ده يديش مرك فرق اللي يتفضل مرك نوال بنو حوايا من اللي خبطوا بها واي إلا أنت سوي ذي جري دونتان أو من الدالة سوي ذي دونتان والله إلا حوايا نفسان أنا بجرتها فوضنا دولا واي ديش نعيش قبل الله حان وسين دونا صدق أديك محان وسوق قبلين ساعة وتابعياش تيم كان يسيب عن سيستم ورتمجع أنت كنت مجع مجع يدي ولا هرت مجع يسيب أو سيستم هرتوا مجع أنا قصدي أنا أنت أسكت إيمان أفردي سنة ما أنت معناه محانه بون ومعناها مجع أنا حوجا خوفك مجع يسيب أو سيستم مركوب مخلو حوجا فني عمل مجع أنا قلنا معناها إن ساز درت هذيك أنا قلنا معناها حيابا صوب اللي إنه مدام ويا حيابا فني مجع يعني أنا إحنا نواسف أنا واي هاشتاج استعمال هاشتاج استعمال هاشتاج بذكر الاستعمال مثل ما عرفت ها ضد إنه معناها أصحاب أنا قلنا بقى أو معناها نشميان يدل عادي واي بذكر كلام محاور كتير إنه يدل عادي ما محاور كان تيم كين خيكا سيب أو سيستم ولا هرت إن أنا إن ذاتك نتاجر أنا وفاميل كين لو مفهمينه ذاتك أنا هاشتاج إن سو استعماله يعني إن حديلا يعني أصحابتي إن ضمن جعل له هذي برجونات محا وجهدنا تاجر شيء والله تاجر شيء أنا وجهدنا هرتمانت إن هير كان تاجرنا هاي إذا كان جالسين ضد بدن معنا أصحاب أنا نسوي حريرا ويجران أصحابتنا بدنا وحب بدينهن
haddee maanta macnaha kusoo raadiyaan misana macnaha mishid ay kusoo diraan aa u jawaabi weysid waad dareemi kartaa adiga qofka isdhaa qof maanta kula soo hadlay beri haddana kula soo hadla haddaa la hadli weysa isdadina laakiin anaga one love waa idin wada jecelnahay same aa noo tihiin kala ilaab respectiga noo muujiseen mid lamid ah anagana waa idin hayna waxaa kusoo gabagabeynaya looha gunaanidka barnaamijkan joognaa gaar ahaan waraysigeena maxaa kusoo gabagabeynaysaa adiga taageerayaasha maxaa leedahay dad badan oo idin jeclaa jira iyaga laftirkooda maxaa farxinta u diraysaa gunaanidka والله أرت دمان أرت اسمي تايجاش أيك أرت دكان ماتا نقدر جنب أداب أيك يدير لهن ضد حصاب بندقنا مو يدير لهن هذا أيك أرت حصاب بندقنا بأيك وايد مدة ذكر لكن تايريات كلا قارئ نوجران فكرة ده أيك أنا بحاول فكرة ده بالنسوق نيبانو تايرات مدة والله زائد إنه بحرم هذه كانت زائدة إني سلامة سيدا إنه بحرتين وكلا waxaan rabaa inaan ku weydiiyo mararka qaar muuqaaladii ka arknaa saddexdiin dadka badan tusaale in dadkan ay kasoo muuqdaan mararka qaar gabadhii aan sheegayso kale wiilal kale inta badan dadkaasoo kale ma waxay ka codsaan in muuqaalada fikradahay keenaan inaad qayb ka noqotaan qof tusaale markuu fikrad la yimaado oo jileenka idinka codsada inuu qayb ka noqdo maxaa shuruuda ku xirtaan qof hadduu fikrad la imaado dadka badanaa boo qoraal ahaan noo soo diraan naga fuliyo fikradda dadkan kale oo ka muuqana sida gabadha iyo salmo kale aan sheegaayo waa gabar ayada isticmaasho oo ummadda ka qoslaysiiso mideeda kana dhalinyartaan kalena oo aa aragtay waxaa waaye waa asxaabta xaafadda sheekada marmar aniga waa naga badnaanay saddexdeen bas ma ahaanayso isbedelay sheekada sida u socotoo kale in noo soo dhigo marka dadaa lagu soo daraa marka waa dhalinyarta xaafadda aad baa maasta aalka marka la kusoo gabagabeyna wijiisda waayahay aalka waxaa laga yaabaa dad badan saa ani iga qoslisoo kale inaa uga qoslisa iyaga dadka aad ka qoslisid oo ku taageera aadka ku jecel waxay jecel yihiin mar walba codkaaga inay maqlaan gunaanidka mar kale jilin yara kaa codsana oo gabagabano ah inaad noo samaysid diyaar waaye jilina cadilina xamar kale ku haystaan meel kale ay leedahay waxaad ka tiraa xamar kale waraysiga maanta aad bixisay iyo asxaab tiktok waxaa dhehaysa oo reer xamara kaaro ah horta unuku maanta waraysiyaa bixini midayganin waxaa waaye waa kana awaanu joogaa warasna u ka kele baablood unugdawaa ididoona marka asxaabtaayna unug oo noo xira maanta waxaa dhihinaa dhammaantiina iyo unug dhammaantiinaba waa nii salaamayna horta salaanta oo salaanta muslimka aad baa mahadsan tahay waan mahad celinayaa dhammaan tiimka aad iyo mahadsan yihiin tiim siiba aan ku siiste oo caawa aad inooga qosliyey inta aana soo guraadiyay barnaamijka mid ka mid ah kalimaha suugaanta ayaan ku yaranasanaynaa guud ahaan caawa waxaan jeclahay inaan intaas kusoo gabagabeeyo barnaamijkii kulanka baraha bulshada waxaan aad uga mahad celinayaa tiimka isiiba aan ku siiste oo marti igu ahaa stuudiyaha loha aalka iyo sidoo kale diyeesha aad ayaa umahadsantihiin
ayaan leeyahay kumanaan jeer stuudiyaha inaan kusoo dhaweeyo aad baan ugu faraxsanahay inta barnaamijkan ka lamid ah aan ku kulmi doono waa saaxiibkiin cabdinaasir socdaal oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo team isiiba aan ku siistay iyo cabdinaasir oo idin leh bye bye nabadgelyo